Assalaamu calaykum. Waxa waayadii dambe iska daba imanayay fanaaniinta hooballada heesayada ah iyo kamantumayaasha toobad keenaya. Haddii aynu Soomaalida ku horreyno, dhowaan ayaa ay ahayd markii ay gebi ahaanba iskaga dhaqaajiyeen qaadidda heesaha qaar ka mid ah hooballada aadka ay u dhegaystaan inta heesaha dhegaysataa, iyaga oo bulshada u galay kaalimo kale oo waxtar leh. Tusaale, Maxamed Biike waxa uu ahaa nin ay shaqadiisu tahay in uu heeso oo halkaas iska ruuxo. Dheef ay bulshadu ku qabto shaqada uu hayaana aanay jirin dhib, dhinaysiin iyo kala dhantaalid mooye. Halka uu hadda ka midka yahay diranayaasha dadka oo wixii awoodiisa ah aanu ka hakran bulshadiisa siiba dhalinyarada. Waxaa isaguna ka sii horreeyay Axmed Biif, waxaana ugu dambeeyay inta ogaalkayga ah Cabdihani, oo markii aan jaamacadda ku jiray jaar nala ahaa oo aanu sannad dhan masjid ku wada tukanaynay. Waxa aan ku arkay 3 dhaqan oo aad u fiican waa Cabdihani. Dhaqanka koowaad, haddii uu idin soo maro idinka oo koox ama keli ah, waa habeen xalay tegay in uu idin dhaafo, oo waxa uu samayn jiray inta uu afar cagoodlihiisa gaadhiga istaajiyo ayaa uu salaan qac kaga siin jiray inta meesha fadhida, si niyad sami ku jirtana u xaal wareysan jiray. Qodobka labaad, marka uu masjidka noogu yimaado oo uu salaada galo, tibiqda ilinta ka da'aysa waxa aad ka dareemaysaa u taagwaaga uu qarinteeda u taag iyo maara la'yahay ee ay sida biyaha ilmadiisu burqanayso oo da'ayso. Alle ha u siyaadiyo ikhlaaska iyo dhadhanka cibaadadeeda. Dhaqanka saddexaad, marka uu salaada ka baxo, sida caadada badida dadku sameeyaan ma sameeyo, masjidka ayaa uu ku hadhaa oo uu ka mid noqdaa midhadhka ugu soo dambeed baxa. Waxaa dhici karta in ay jiraan qaar aanan carrabaabin oo iyaguna ka tegay hooballada iyo haadaanka rididda dhalinyarada. Haddii ay kuwaas yihiin qaar ka mid ah hooballadii Soomaalida oo ka tegay shaqadii ay hayeen una kacay dhanka iyo khayrka iyo bulshada in loo qabto wixii waxtar u leh, bal aynu dhanka iyo carabta u kacno. Waayadii dambe waxaa isi soo tarayay kasoo qulqulidda ay ka soo laabanayaan shaqadii ay hayeen qaar badan oo hooballadii heesaha qaadi jiray iyo kamantumayaashii carabta ah, iyaga oo ay aad u fara badan yihiin hooballada carabta ah ee faraha ka qaaday heesuhu ayaa aynu dhowr ka magacdhabaynaa. Maxamed Risqi, Adham Naabulsi oo isweydiiyey weydiin yaab ah sidii uu isaga joogay oo ugu dhex jiray caalamka cadhada iyo diiqadda ee heesaha kamanka leh, erayada caatada ahna wata, oo dadka ku xidhan ay dhowr malyan yihiin, ayuunbaa uu maalin maalmaha ka mid ah isweydiiyey weydiin odhanaysa: xikmaddan u noolahay ma aha waxa aan ku dhex jiro, maxaa khaldan? Halkii ayaa uu dib uga xasuustay aayadaha qur-aanka ah ee ka hadlaya ujeedka abuurka aadamaha. Markaas ayaa uu muddo hadda laga joogo 2 toddobaad soo duubay muuqaal uu kaga hadlayo in uu gebi ahaanba joojiyey shaqadii taagta darnayd ee uu gacanta ku hayay kuna howlanaa, isagoo oo cod aad iyo aad u macaan ku akhriyaya aayadda qur-aanka ah ee sheegaysa ujeedka Rabbi aadamaha u abuuray in ay tahay cibaadada. Markaas ayaa ay dad badan afka furteen oo dhaheen, fanku ma xaaraanba? Ma wax la dhaho waa laga toobad keenaaba? Hadda ogow, oo waa isla dadkii odhan jiray qofka ha loo daayo waxa uu samaynayo, waayo waa u xor noloshiisa iyo waxa uu falayo ee samaynayo. Ma waxa aad aragtay dad marka ay shay samaynayaan odhanaya, aniga ayaa noloshayda u xor ah, marka aad adigu samaynasana saaraya 100 calaamad su'aal ah, oo aan odhanayn hebel ama heblaayo iyaga ayaa noloshooda u xor ah halkii ay geynayaan iska dhaafa. Waa dadka maanta nool ee haysta aragtiyaha liberaaliyadda iyo calmaaniyadda. Sideedaba dadka dembiga samaynaya waxa ay u qaybsamaan 2 nooc. Qodobka koowaad, kuwa ka murugoonaya waxa ay samaynayaan oo qarsada xumaanta, maankooda iyo maskaxdoodana ay buuxisay in ay maalin ka toobad keenaan oo ay soo noqdaan. Culimada iyo dadka wanaagsanna ka dalbada in ay u soo duceeyaan, kuwaasna
inta aymaankooda ku jirto murugo ay ka qabaan falka xun ee ay samaynayaan iyo jacaylka ay u qabaan falidda wanaagga iyo toobadkeenka, ilaahayna maalin unbuu waafajinayaa oo solonsiinayaa toobadda insha allah. qolada labaad waa qolo aan ka murugoon falka ay ku jiraan ee xun, dadka dhexdiisana jecel in ay ku sameeyaan, oo dadka oo dhan baa ay la jecel yihiin in ay qaabkaas wada noqdaan oo ay xumaantu ku dhex faafto. waana dad mawduucyada iyo toobadda marka lala soo hadal qaado dood ka keena oo muran badan. kuwaas ilaahay waxa uu u sheegay arrin laga naxo oo ay tahay inuu ka cararo qof kasta oo noloshiisa aayo ka leh. allah waxa uu ku yidhi aayadda 19 ee suuradda nuur, kuwa jecel in ay xumaantu ku dhex faafto kuwa alla rumeeyey waxa ay if iyo aakhiraba ku leeyihiin cadaab daran, ilaahay ayaana og, idinkuna ma ogidin. waxa ugu dambeeyey oo isna baahiyey toobadkeenkiisa 2 casho keliya ka hor taabir xusni oo ahaa kamantume carbeed. waxa aan idinka codsanayaa dadka aan soo sheegay iyo kuwa aan ka tegayba in aad ilaahay u weydiisaan inuu ku sugo nolosha macaanka badan ee ay galeen. ugu dambayn waxa aan ugu baaqayaa hooballada Soomaalida ah iyo kamantumayaasha in ay dib u qaabeeyaan noloshooda oo ay isbarqabtaan kana fakaraan meesha u dambaysa iyo dadka tirada badan ee ay luminayaan. waxa aan samayn doonaa haddii allaha awoodda leh uu ogolaado muuqaal aynu kaga hadlano xukunka heesaha, waxyaabaha laga dhaxla dhegaysigooda iyo dhexqaadkooda. waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.